qacda ugu badan iyo sheekooyinka qosolka ah qurbaha marka la joogo waxay qabsataa dhalinyarada ka shaqeysa qaadqaadista cuntada. waxaan idinla wadaagayaa laba sheeko oo ku dhacay laba nin oo aan saaxiibanahay. xilligii barafka ee sanadkii hadda la soo dhaafay waqti ay tahay 5 galabnimo ayaa waxa ii yimid saaxiibkay oo liin dhanaan fuuqsanaya. war maxaa dhacay baan ku yiri maanta maxaa waaye liin dhanaanta tan liin macaan maad weydi. wuxuu yiri nin ficilo sheeka igu dhacday waxaan ka shaqaynayay qaadqaadistaankii cuntada. cunto $5 ah baan qaaday oo magaalka xaafadaha kornayaasheeda ku yaala buu yiri baan geynay. dabaq buu yiri baan cuntada u siday baarkinkiisii ayaan gaariga dhigtay intaan jaranjaradiisii raacay oo aan cuntada soo dhigay. qolada tan gawaarida jiidata marka la dhigo baarkinada khaldan ayaa gaarigii hore ka qaatay markii. waa soo degay buu yiri mise gaarigii iima yaal baraf xunna waa dhacaya. meeshaas bas buu yiri ma maro oo xaafadahaas meel xoogaa ka durugsan oo ilaa 30 daqiiqo loo soo soconayo ayuu basas ka soo baxay. wuxuu barafkii baan soo dhex qaaday halkii baan baskii ka soo raacay anoo baska soo saaran oo jidka ku soo jira buu yiri waxaa lay sheegay gaarigii inuu halka yaalo meelsha la geeyo gawaarida marka la soo jiido $250 buu yiri ku soo doono baa lagu yiri. waa arrin madax xanuun ah adigoo $5 raadinayo oo sida in $250 ugu dhaw soo bixi. sidoo kale mid kale oo saaxiibkaya ayaa waxa uu sidaas oo kale cunto uu sida wuxuu soo geliyay xaafado wadooyinkana ma uu kala yaqaan wada oo hal way kali ah ayuu ku soo dhacay. intuu wadadii uu islahaa kala wareeg baa maxay ahayd markiiba waxa ku yimi booliska 320 ayay tigidha bay u dhiibeen. cuntada uu sida $7 meelahaas buu ku leeyahay bay dhantahay madax xanuun buu yiri baarkin intaan geliyay buu yiri baa cuntadii saas rasiirkeedii akhriyay mise chicken iyo fries uu yiri. baarkin buu yiri baan gashtay ciilkii cuntadii intaan cunay buu yiri baan gaarigayga soo kaxaystay gurigan keenay application-kiina waa iska xiray madaxa iyo majahan maray. marka sababka ugu badan ee horta dhalinyaradaasi ku dhacaan haddii aad ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeysa qaadqaadista cuntooyinka bal nala wadaag cadooyinkii kaaga dhacay intii aad ku guda jirtay shaqadaad. waxaan ahay ficil burkuud dhiidhi halka aad igala socotaana waa degelada aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo TikTok. haddii aanad nala socon nagu soo biir oo kan noqo bahda ficil burkuud.